waxaynu gudageli doonaa hawsha halkan u nimi ee ahayd xuska maalinta duumada waxaynu ku bilaaban doonaa insha Allah taala aayado quraana kariimka dabadeed baynu barnaamijkeena gudageli doonaa waxaan ku soo dhaweynaa insha Allah taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ilaahay inuu waafaqay caalamkana waxaynu gudageli doonaa barnaamijkeena maanta halkan soo nimi oo sida halkaa ku qoranba aad uga jeedaan xuska maalinta duumada adduunka iminkana barnaamijkeenu si dhaqso u gudageli doonaa waxa hordhac inoo soo jeedin doonaa yaabe horta maanta waxa weeyaan maalintii xuska duumada duumada waxa weeyaan waa malaria gobolkeennan malaariyadu aad iyo aad bay sanadka muddo ilaa 7 sano oo hore ma jirin laakiin sanadkan duumada gobolkeenna aad iyo aad ayay saa'id ugu tahay meelihii kancada dadku soo riisay aday boorama tahay iyo haday magaranaysaa meelaha degmooyinka tahayba kullay toole muxuu ahaayay maanta waxa markaa aynu ka hadlanaa dhibaatooyinka ay leedahayna waynu ognahay in la sii magaranaysaa dhibaatada kancadu leedahay la sheego taxadir badanna sida gobolkeennan Somaliland imika waxay ka bilaabantay gobolkeena awdal iyo Ceergaabo marka waxa weeyaan waxa la rabaa sideen uga taxadir lahayn inay magaranaysaa kulli laga hadlo waxaan ku soo dhaweynayaa oo faahfaahin doona isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal بسم الله الرحمن الرحيم قلياشة كسوق قيب قلي حسك المعلمة كاعادة الدونك وسود وينيا وين مهتسيه سيان وجود بينه صنت كان عادة كلمة دي WHO كول اللهيت هذا عفمت كالدونك وصير اللوجو هرتجيو كان عادة سيا فرنتي كان عادة هو غفر بدن dadweynaha aad u saameeyay ay ku jirtaa waxa lagu qiyaasaa ilaa 219 milyan oo qof inay sanadkii heli karto waxa u dhinta ugu yaraan 660,000 oo u badan caruur marka sanadkii aan wadanadeena Afrika geeska Afrika kale markaan soo qaato runtii waa meelaha كناعدو عريس كوين كويس كناعدا سيسي لوجو هرتو أدونك قارها هيدا WHO وحيكون تلاقش إنسان كي أيهشوا 5 بليون أو دولار سيدي كناعدا لوجو هرتو فندريسك أنت هاسلك لما وذا أودك وحلاقي يا أبا boqolkiiba 50 oo ilaa 2 milyan iyo dhibic hal noqon karta oo dollar in ay bilyan oo dollar in ay sanadkii ku kharash garayso sidii loogu hortagi lahaa kaneecada maadaama urayska inta leeg ay ku hayso adduunweynaha wadano fara badan oo Afrika iyo Asia iyo Latin America intuba ay ku jiraan adduunyada ay ku wada jiraan lagu kala badnaaday ayay culeysyadu u bari runtii ilaa waxa lagu qiyaasaa 9 wadan ilaa 103 wadan in Indian sanadkooda ay ku tahay kaneecadu markaan gobolkeena soo noqdo ama Somaliland markaan soo noqdo sanadihiina soo dhaafay kaneecadu way yaray asbaabta yaraysana waxay ahayd ka hortag fiican oo lagu sameeyay ilaa iyo daryeelayaasha oo inanka daryeelaya maanta tuulada jooga wuxuu samayn karaa
inuu dhiiggii qofka ka qaado dawadiina uu siin karo dawooyinka inta badan adkaysi fara badan ayay la samaysay kaneecadu ha yeeshee dawooyinka yaalla meelaha rugaha caafimaadku way ka gadisan yihiin kuwa suuqa yaalla oo waa kuwa adkaysi aan weli dhulkeenna lagu tilmaamayn inkastoo waddanada barhkooda waxoogaa adkaysiga laga tilmaamayo resistance fara badan haddana dhulkeenna weli kama jirto markii haddaba la isla helay daryeelihii ilama rugi caafimaadka oo qofkii si dhib yar dhiiggii uga qaadi kara u daaweyn kara dadkii xanuunka qabay waa la wada daaweeyey kaneecadii qof xanuun qaba inay soo qarintay adigana ku qarintee asbaabahaasaa markaa hoos u dhigay waxaa kaloo intaa la qaybin jiray marakaneecooyin daaweysan oo gaar ahaan ciyaarka iyo hooyada uurka leh loogu talagalay ha yeeshee sanadkan iminka ilaa sanadkii hore markaan bartamiyihiisii ka soo bilaabay gobolkan awdal runtii kaneecadu dib ayay meelihii ay sanadkao dhan ka jiri jirtay dib bay uga bilaabantay haba u badnaataba bakibe oo gaar ahaan xoorey iyo xamarta durdurcad aw sii fara badnaayeen ilaa 100 qof ayaa laga helay lagana daaweeyey culays badan runtii naguma hayso maadaama qofkii xanuunka qabay hoygiisii loogu geeyey dawadii iyo wixii lagu baadhayaba si uuna magaaladeena u soo dhexgelino ayna dadweynihii isa sii wada gaadhsiinin ayay ujeedada ka dambaysaa marka kaneecadu runtii dee dhibaatooyin fara badan oo caafimaad darro ah ayay ku haysaa dadweynaha gaar ahaan dumarka uurkale dee lama iyo dhicis ay ku keeni karto dhimashooyin fara badan oo kuwa aan sheegaya 660,000 oo qof aan ku tilmaamaya way keentaa si haddaba marakaneecooyinkaa loo helo dawadii lagaga qofkaa lagula tacaali lahaa loo helo qalabkii lagu baadhayana loo helo ayay lacagtii horeen soo sheegayay ujeedadeedu ay ahayd markaa haddaba guud ahaan qaabkii looga hortegi lahaa malaariyada in dadka lagu wacyigeliyo oo dee waxay ka dhalanu meelaha biyuhu ay fadhiistaan in qofkii gurigaasi deganaay hadduu biyo fadhiisi agtiisaasoo waqti dheer jirayay uu ogyahay inuu iska yar darooliyadii si ay biyihii meeshaas uga durduri karaan kaneecana aanay ugu imanin ayaa lagama maarmaana marka maanta oo loo jaangooyey maalintaa kaneecada adduunka runtii waa maalin sidii loogu hortegi lahaa kaneecada iyo dhibaatooyinka ay ku haysa bulshada loogu talagelay weeyi siyoo la iga dambayn doono inay nala joogo agaasimihii health serviceska iyo wasaaradda caafimaadka dr cabdiraxmaan أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد أفضل الصلاة والسلام عليه على اسمها اسبيتال كبورم دكتور إسماعيل يسدوها وسارة عافماتك يقبل أفضل دكتور عبد الرحمن جامع دميك حيان كقبلك عبد الملك سبال على اسمها جودة وسارة كناسية دكتور عين صلاة الدروينة مسكين خضر محمد أن ماذا حبير سيجا يد ما شغالها وزارة عافمات كالكن شوية أنت إنك سوق يبقى شيء بعد الصحافة واحد كل سلام يا صلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن أرتمانت وحنو يعني حسنا إنك صانع هين ما أنت وحالك أبو قرنية ما أنت نشوفنا اسمها هالك واحد نوجو قرنية لين ما أنت كنا عدد دونك وعشرين لو أتن قبل إننا نشوفنا كوبي تونكي مي يعني in badan baynu soo habsaanay waxaanay runtii ku timid adigu xagga farsamada daraadeed bay ahayd maantaasaa laga qabtay adduunka intooda badan meel walba laga xusay innaga laakiinse somaliland maanta ayaa laga xuseeyaa waa bisha may 11 ku jirno somaliland guud ahaan 2 meelood unbuu ka dhacayaa xuska
malaariyada waa Hargeysa iyo Boorama sababta labada meelood oo soo qaatay Hargeysa waa xaruntii laakiin Boorama waxa loo soo qaatay Soomaaliland ahaan waa meesha laba kaliya imika oo xanuunka dib uga soo noqday sida imika dhakhtarku idin sheegay sidaa darteed baynu ugu talagalnay in la tago xarunta gobolka Awdal oo dalataniyadana laga sameeyo xuska maalinta kanaacada si dadweynaha loo wacyigeliyo oo runtii aynu ugu sheegno dhibaatada xanuunka leedahay haddaynu wax yar isaga sheekayno xanuunkan duumada يعني نجس الصوماليان حنونك وحنا نقلنا الدوم واحد كنا وحنا نقلنا بعشق قادنا كناع وحنون مدلل رأي مصور نقلنا رنتي وتاريخ دي سنة وإن بدنا يمقرنا وحنا الله إلى هذا مرة كتاب كلها في بور سلوه قاعد إناني كناع هذا اللبسيد وحنون ككيرين الشرم سيسدا وكانوا وحي هذا صوماليان وحيل جبر الإنجليز بتشوفين لكن لا صح لا لو شغل نقدر كأنه كله حنونكم مركا وحنون يعني تاريخيا داوين وحكلا إنه حتى شيء كوي يقولون هاي نعين تبدأ إن نقولها الله يرهدو كان يعادو وهاكي الله سبحانه وتعالى وكسر لدينا كل ورنشر النمرود حلق النبي إبراهيم صلى الله وسلم عليه ورنشر نكبس كلا عشر وجه قاسم ورنشر وكد اليوسي جرت مركا يلي إلهي ما سرد لي وحق سروك عمودي يعني دكتور سبحانه وتعالى إنه ندلك إنه كي كان عادي رب كسر لأساس إنه هو إن التاريخ لا يبان له حقيقة marka xanuunku saas uu waqti dheer ugu jiray uu leeyahay inaguna waa aqoon baynu leenahay inta badan oo xanuunku siyaabaha uu nagu dhacay inta badan sidoo yahay waan qanaa waxaana waana xanuun runtii u kala gudbi kara dadka iyo xoolaha meelaha qaarkood oo dalalkan la yiraahdo South East Asia ama Koonfur Bari Asia Japan ilaa iyo kala kulligooda ku jiro waxa jiraan nooc kamida plasmodiumka oo u kala gudba dadka iyo daayeerka nooc daayeer la yiraahdo makakiska ayuu ku dhacaa dadna dadku ugu soo gudbaan xanuunkan caan ku yahay waa cudur faafa dhibaatooyinka waa inta badan keenaa ama lagu gartaana way naqaanaa inagu aqoon baynu wadalaan kulligeen inta xataa dhakhaatiirta inta kaleba waa xumada sareysa iyo madax wareer iyo inuu marka dambe keeni karo qofka inuu koomo gelin karo deetana uu dhimasho marka dambe keeni karo waxa kale oo uu leeyahay yani inuu la dagaalamo oo burburiyo waxaan loo yaqaan unugyada dhiigga xasaas inta haddaynu kaga yar gudubnayna xanuunka iyo wax iska sheekadiisa waxaa haddaba jirta adduunweynaha oo dhan runtii waa xanuun aafeeyey oo saameeyey siduu Dr. Cabdiraxmaan diin sheegay ilaa 219 milyan oo qof oo adduunyada haya xanuunku inta ugu badanna waxay WHO kusoo report garayaan inuu maxay ahayd xanuunkani dilo ilaa 660 qof sanadkiiba deeq fara badan oo ay adduunku iska ururiyeen iyo dadaal fara badan oo ay dunida nugta wasaaradda caafimaadka ee adduunyadu ay sameeyeen waxay ku dadaaleen inay isku dayaan inay xakameeyaan xanuunka waxa ay matalan sameeyeen yani in Afrika dhibaatada dhimashada xanuunka ay runtii hoos u soo dhacdo ilaa iyo yani laba meelood saddex meelood kiyo ay hoos u soo dhacdo dunida in fara badan oo kamid ah maanta waxay isku dayaysaa inay xanuunka la yimid oo la sameeyo oo la control ayaad runtii deeqaad fara badan ka geysata la dagaalanka xanuunada malaariyada TB-da iyo HIV oo la yiraahdo Global Fund-ka iyadoo ay runtii la kaashanayo hay'adaha caafimaadka adduunka sida UNICEF iyo WHO iyo kuwa kale inaga guud ahaan loo kaliinay nala shaqeeyo kamid ah hay'adaha iyo kaniyo waxaan isku daynaa runtii inaynu xakamo u geysayno xakamayno hada dhibaatada ay noo hayso kanaacada inaga marka hadda Soomaaliland laga hadlayo waxaan ku jirnaa dalalka ay ku jirto يعني تايل يعني فديت حنونكو يهاي لو ترانسميشن يعني آد بو هوسين لكن هوسين تاس واحد باطل له مركا وصوب أوتري أما ودعوه يعني حنونكو ودلاعه فديه على يابا تاس خطرت إنه ولا هاي مركا وحنونكو دلاعه على يابا يعني بالمشهد إنه يو حنونك أنتوا واحد شيء بسنة سابعة هذا صار كروك عضو وايو حي لا بالدفاع شركنا ومالها وحنونكو بالريستي ومر والبكتشرو waxay yani develop gareynayaan ama qofku sameeysanaya yani difaac inay sameeysan inaga hadda marka baaq runtii ku jirnaa waxa weeyeen in kulligeen ka qayb qaadano la dagaalanka yani duumada aynu isku dayno inaynu sameeyno waxa kale oo aynu wasaaradda ahaan sameeynay yani inuu jiro qayb gaar ah oo wasaaradda kamid ah runtii hoos timaada waaxda adeega caafimaadka oo la yiraahdo yani mashruuca ka hortagga kaneecada waxa kale oo runtii ilaahay fadligiisa aynu gaadhnay in aynu sameyn karno in daawada kaneecada iyo waxaan loo yaqaano RDT-ga ama Rapid Diagnostic Test-ka inaynu gaarsiinay ilaa iyo health post
marka cusbitaal kasta oo Somaliland ka mid ah iyo MCH kasta oo Somaliland ka mid ah iyo health post kasta oo Somaliland ka mid ah waxa yaala labada nooc la sheegaya rapid diagnostics iyo dawadii oo tii ugu casrisaneyd runtii oo ay dadku qaadan lahayn rooshiga lahayn waxa dabaynu maanta ujeedadana fariintan gudbin waxda inay waliba gaar ahaan gobolka Awdal ku sii gowaabinayna inay isku dayaan inay sidii ay ula xakameyn lahaayeen oo ay fayadowrka guudna uga qayb qaadan lahaayeen meelaha biyuhu fadhiyaan ay maxay runtii yani looga dadaali lahaayeen biyo badan si fariisan ama ay sii deyn lahaayeen biyahaasi wacyigelin fara badanna la sameeyo waxaan ku boorinaynaa qof kasta oo aad ku aragtaan inuu leeyahay Axmed aad sarreeyay madax xanuun inay isku daydaan waxa ugu horeeya ka eegtaan noqdo inaad ka eegtaan kaneecada message-kan maanta doonayso isu gudbina waa ka yani qof kasta oo gobolkeena jooga Awdal waad ku aragtaan Axmed aad sarreeyay iyo madax wareeg waxa markiiba ugu dhaqaaqdan dhinaca inuu tago xarunta caafimaadka ugu dhow si looga baaro kaneecada gaar ahaan waxa aad u sii dadaalina inaynu hooyooyinka iyo carruurta aan culays ka saarno hooyooyinka inta ugu kale say soo gudbiyaan waxaan ku soo gabagabeynayaa runtii inaynu yani halkudhiga halka inoogu qoro runtii aan ku wada shaqeyno dhammaanteen kana qayb qaataan sidii wacyigelin badan loogu sameyn lahaa gobolka Awdal iyo guud ahaanba Somaliland keeda kale waliba si gaar ah xanaano loo siiyo hooyooyinka iyo carruurta asalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan soo gaadhay intii gabagabadii xuska maalinta aynu joognay duumada waxay noo soo xiri doonaa gudoomiyaha gobolka Awdal عبد النور سجان كوباد الله يبقى مهضم من لبعض واحد محل عليا أجلس سدوه وسألنا عفناس قبلك عبد الرحمن جامع حديد مدح فيدورك وسارته سدوه إذا أجسمها سبتالك أجسمها جودة وسارته أنا عسيقة هي لما أنك صوت بدياش حفلته ما هاي يا هو مدح بسجرة iyo dhammaan ka soo qayb galayaasha xafladda maalinta kaneecada oo maanta la xusay waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xagga caafimaad iyo kaneecadu dhibta ay leedahay waxaynu inooga warramay laba digtoor ka sheekeeyay dhibaatada ay leedahay inta qof ay ku dhimata maaliyadda WHO ugu tala gasho waxaasoo dhan waxay noo sheegay digtoorada anigu waxaan fariin lahaa dadweynaha ka soo qayb galay iyo dadweynaha ay dhegeysanayeen waxaa la sheegay inay kaneecadu maanta ku badan tahay gobolka Awdal marka waxaan leeyahay meelaha biyo fariisinka iyo xagga nadaafadda ha lagu dadaalo sidoo dhakhtarku sheegayna qofkii laga dareemo xumad fara badan qandho ah ha la keeno meelaha ugu dhow xafladuna way noo xiran tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi